مسؤولينta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag oo horkacayo gudoomiyaha wasaaraddaasi Cabdulla Maxamuud Maxamed ayaa kormeer ku tagay deegaanada qarar ee bariga degmada Ceergaabo. Mas'uuliyiintan socdaalkoodu waxa uu daaranaa u kurgelida habsami socodka dugsiga qarar oo ay dhigtaan arday tiro badan iyo baahiyaha waxbarasho ee ku geedaaman iskuulkaasi. Waxaan ugu horreynba halkaasi ka hadlay maamulka dugsiga qarar Khadar Ibrahim, Dr. Xasan iyo Dr. Ibrahim iyo waliba sidoo kale waayeelka deegaankaasi kuwaasi oo dhammaantoodba ka warbixiyay baahiyaha waxbarasho iyo duruufaha dugsigaasi. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa oo mahadcelin ballaaran u jeedinayaa wafdiga ballaaran ee heer gobol ee nooga yimi gobolka Sanaag, gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka Sanaag Xaaji Axmed Ciise. waxaan leenahay soo dhawaada, aad baan idinku hambalyeynaa maanta kormeerkan qaar noogu timaadeen. haddii aan idinka warramo iskuulka kan wuxuu isugu jiraa 4 fasal buu isugu jiraa. ardayda idin muuqata waa 4 galaas weeye. 4ta galaas waa 1 ilaa 4. xagga dhismayaashana halka fasal ayay ku dhigtaan. waxaan wasaaradda ka codsanaynaa wixii iskuulka ka dhiman, sida haday tahay in dhismayaal loo kordhiyo, haday tahay xafiisyo in insha Allah taala loo dhiso ayaan u baahanahay. aad baa mahadsantihiin. hore looga warramay ama waa muuqatay baahiyaha waxbarasho ee ballaaran ee halkan ka jira. waad aragtaan ardaydii 4 iyo 6 bay dusha isaga saaran tahay. sabuurado badan baa qolkan la kala jeediyay oo markii ay runtii ardaydii ay qaadi weyday hor iyo gadaal baa loo kala jeediyay sidii ragga hore iga horeeyay sheegeen. taas waxay muujinaysaa in deegaankiina uu yahay deegaan ballaaran, ardaydiina ay tahay arday fara badan, agabkii waxbarasho ee la haystayna aanu ahayn ku filan. sida laga soo sheekeeyay waxbarashadu ilaa heer geed hoostii abay ka soo bilaabantay. taasi waxay ku muujinaysaa dadaalka dadkani ay u qabaan ama baahida ay u qabaan waxbarashada. maantana halka ay soo gaarsiiyeen waad aragtaan. waxaan codsanayaa insha Allah taala wasaaradda waxbarashadu in ay hamigooda iyo hanka ku jira ay la garab istaagaan insha Allah intii karaankooda ah. waxaan anagu u baahanahay guryaha qabyada ah, qabyatirkooda, macallimiinta, ardayda, daryeelka. waxayaguna dhankooda kormeerkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag iyagoo sheegay in wasaarad ahaan wax ka qaban doonaan baahiyaha waxbarasho ee deegaankaasi. kormeerka iyaga waxa loo soo fududeeyay deegaanka halkan ayaa loo fududeeyay. ana ku faraxsanahay inaan maanta sii aragno dugsigan iyo ardaydiisa. aad baan ugu faraxsanahay. kullayba baahiyo meel walba way ka jiraan. waanu aragnaa baahiyaha halka ka jira way muuqanayaan runtii markiiba sida fasalada. insha Allah wixii baahiyana waanu sii qoran doonaa. shirka cusubna isna kullayba warbixinaha isagu baan u geenaynaa waxba inala qaban. dhinaca kale intii mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo bahda saxaafaddu ku sugnaayeen deegaankaasi waxaa dadka deegaankaasi soo gaaray hay'adda World Concern oo muddooyinkii u dambeeyay deegaanadaasi ka waday qaybinta iyo la tacaalida faqadarada ballaaran ay sababeen abaarihii dhawaan dalka ka dhacay. Barkhad Maxamuud Geedi, Bulsha TV, wararka gobolka Sanaag.